halkan oo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ka soconaysa qabanqaabada soo dhaweynta madaxda ka qayb galaysa shir madaxeedka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha safka hore ee dariska Djibouti, Kenya iyo Ethiopia. shirkan oo maanta shir gudoomin doona ama si rasmi ah u furi doono madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynaha dowladda Kenya William Samoei Ruto, madaxweynaha dowladda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed. shirkan oo ay dowladda federaalka Soomaaliya isugu yeertay madaxda dalalka safka hore ee dariska ayaa looga arinsanaya oo ujeedkiisu ugu weyn uu yahay sidii loo sii xoojin lahaa isla markaana loo taageeri lahaa howlgallada ka dhanka ah kooxda khawaarijta al-shabaab kuwaas oo ciidanka xoogga dalka iyo shacbiga Soomaaliyeed ay jab xoogan ku gaarsiiyeen howlgallada ka soconaya gobolada dalka. shirkan oo shalay barbilow uu ahaa isla markaana uu dhaxmaray wasiirada gaashaandhigga iyo taliyaasha ciidamada Soomaaliya iyo dowladaha dariska ee safka hore ayaa lagu diyaariyay ajandaha shirka maanta looga hadli doono iyadoo oo dowladda federaalka Soomaaliya ay shirkan ku sheegtay in ujeedooyinka ugu muhiimsan ay yihiin sidii la isaga kaashan lahaa amniga gobolka iyo sidii loo sii xoojin lahaa taageerada howlgallada ka dhanka ah kooxda khawaarijta al-shabaab kuwaas oo gobolada dalka ka soconaya. shir madaxeedkan waxa ugu dambeysay 2016 markaas oo magaalada Muqdisho lagu qabtay isla markaana ay ka qayb galeen madaxda dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD iyadoo shirkan hadda muhiim u yahay amniga gobolka maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay howlgallo xoogan ku baacsanayso kooxda khawaarijta al-shabaab taas oo la doonayo in la isaga kaashado sidii loo sugi lahaa amniga xuduudaha dalalka dariska la ah Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka furi doona ayaa ka jeedin doona khudbad dhinacyo badan taabanaysa iyadoo ay xusid mudan tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay shacbiga Soomaaliyeed kaga cudur daaratay culeysyada ka imaanaya maanta shirka furmaya maadaama wadooyinka magaalada ay xiran yihiin. waxay shacbiga Soomaaliyeed dowladdu ka codsatay in ay dulqaad muujiyaan maadaama laga shaqeynayo danta dalka isla markaana daruufihii ay abuureen khawaarijta al-shabaab ay dowladdu doonayso in meesha laga saaro. waxaa xusid mudan in dowladaha dariska ee maanta shirkan ka qayb galaya madaxdoodu ay ciidamo ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo qayb ka ah howlgalka kumeel gaarka ah ee ADMIS. shirkan waxaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed ay madaxdu isla qaataan taas oo si gaar ah loogu eegi doono howlgallada soconaya waxaana xusid mudan in ujeedooyinka ama qodobada ugu muhiimsan ee shirkan laga leeyahay ay tahay sidii loo abuuri lahaa amni buuxa oo gobolka ah isla markaana dowladaha dariska ee safka hore iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen in dalka nabad laga dhigo ama guud ahaan gobolka. wixii shirkan ka soo baxa si toos ayaad uga socon doontaan warbaahinta qaranka iyadoo oo halkan oo ah garoonka diyaaradaha laga sugayo in madaxdu ay halkan ka soo degaan isla markaana la soo dhaweeyo kadibna uu shirku si rasmi ah u furmo. Ayuub Cabdiraxiin warbaahinta qaranka garoonka diyaaradaha Muqdisho.